kadib diidmadii xasan sheekh maxamuud ee Addis Ababa filla Soomaaliya ayaa beenisay hadal hore uga soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud xilli uu mucaarad ahaa kaasoo ahaa in ciidanka Soomaalida ee Eritrea ku sugnaa ay ka qayb qaateen dagaalkii u dhaxeeyay dowladda federaalka Itoobiya iyo fallaagada Tigreega ee TPLF. hadalka xasan sheekh maxamuud ayaana sidan u dhignaa: waa la qaaday, waa la xaabiyey, Eritrea lagu shubay, tababaray ku maqan yihiin ciidamadii, siyaasiyiinteena waa lagu handay waxa ciidanka Eritrea imaanayo waa la dardara, waa la xasuuqa, ilaa waa niman dhalinyaro oo intaan mageen ka baxayn la qalday, xaggana la iibsaday, waa la iibsaday. maxaa ku tilmaami kartaa adiga? wax kale oo aniga ku tilmaamo maqan, dhalinyaradaas waa la iibsaday, Eritrea la geeyey, war iyo wacaal wax u haya ma leh, war soo duulay oo xaggay xag ka soo duulay oo waa dhinteen oo Aksum ay ka dagaalameen oo xaggay tageen Makala lagu laayay iyo xaggay dhaceen iyo muxuu buuraha ay ka daateen oo qara muxuu ay ka dhaceen oo waa dhinteen oo waa saano. warka ka soo baxay filla Soomaaliya ayaa imaanaya xilli dowladda Itoobiya ay diiday inuu dalkeeda yimaado xasan sheekh maxamuud ayna joojisay booqashadii isbuuc hore uu ku tagi lahaa magaalada Addis Ababa. dhinaca kalena ay soo baxayeen in khilaaf siyaasadeed oo xoogan uu soo kala dhex galay filla Soomaaliya iyo Addis Ababa. haddaba arrimaha waxaan wax ka weydiiyey wariye Faahiye oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika iyo Soomaalida. Faahiye, soo dhawow. muxuu yahay hadalka ka soo baxay filla Soomaaliya? waa maxay sababta keentay in raaligelin ay ka bixiso filla Soomaaliya hadal ka soo yeeray xasan sheekh maxamuud ahaa qof shacab ah? mudan aad baad u mahadsan tahay. madaxtooyada Soomaaliya tan iyo markuu xilka la wareegay xasan sheekh maxamuud waxay si rasmi uga hadashay in ciidamadii tababarka ugu maqnaa Eritrea ay qayb ka noqdeen dagaalkii u dhaxeeyay dowladda dhexe ee Itoobiya iyo fallaagada TPLF. afayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar oo shir jiraa'id maanta ku qabtay gudaha madaxtooyada ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in ciidamada Soomaaliyeed ku sugnaa dalka Eritrea ay ka qayb qaateen dagaalkaasi ka dhacay Itoobiya. isagoo arrintaas ka hadlayana waxa uu yidhi waa war ku tiri kuteen ah, war rasmi ana ma aha oo dowladda Soomaaliya ka soo baxay. ciidamadaasi tababarkii waa dhammaysteen, waana 5,000 oo askari dhawaanayaana lagu soo celinaya dalkooda si ay u gutaan waajibaadka qaran ayna qayb uga noqdaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. waxa uu intaa raaciyay in ciidamadani ay yihiin ciidamadii lalaa madaxweynahan uu soo arkay. warkan ka soo baxay filla Soomaaliya wuxuu meesha ka saarayaa warar muddooyinkii dambe la isla dhexmarayay oo ku saabsanaa in ciidamadaasi ay qayb ka qaateen dagaalkii ka dhacay Itoobiya ee dhex maray fallaagada TPLF iyo dowladda dhexe Itoobiya. sidaynu la soconnay hadda ka hor warbixin ka soo baxday guddida qaramada midoobay u qaabilsanaa xuquuqda aadanaha ayaa lagu sheegay in ciidamo Soomaaliyeed oo tababar loogu qaaday dalka Eritrea ay ku lug lahaayeen ama ay qayb ka ahaayeen dagaalkii ka dhacay waqooyiga ee dalka Itoobiya. warbixintaas ayaa lagu xusay in guddida qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ay soo gaareen warbixino iyo war sheegay in ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka military u joogay halkaasi laga qaaday xariyihii ay ku tababaranayeen lana geeyay jiida hore ee dagaalka u dhaxeeyay TPLF iyo dowladda dhexe Itoobiya. sidoo kale doorashadii madaxweynaha Soomaaliya intii lagu guda jiray siyaasiyiinta mucaaradka oo uu ka mid ahaa madaxweynahan hadda la doortay ee xasan sheekh maxamuud ayaa si weyn u faafin jiray in ciidamadaasi loo isticmaalay dagaalka Itoobiya, balse arrintaas ayaa u muuqata inay ahayd waxay ku galayeen ololahooda doorasho oo aan sal iyo raad lahayn. xasan sheekh maxamuud oo dhawaan tagay dalka Eritrea ayaa la kulmay ciidamadan tababarka dhamaystay ee dalkaasi jooga. waxa uu markii uu Muqdisho ku soo laabtay la kulmay guddida waalidiinta isagoo ballan qaaday inuu soo celin doono ciidamadaas. xasan wuxuu sheegay in ciidamadaas ay nabad qabaan, wax dhiban aysan la kulmin. sidoo kale xasan wuxuu ka mid ahaa shakhsiyaadkii aaminsanaa in ciidamadaasi ay dagaalkaasi qayb ka qaateen, qayb ay ku dhammaadeen gudaha Eritrea. sidoo kale wuxuu carabka aad ugu adkeyn jiray in ciidamadaasi dowladda Soomaaliyeed uu hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay iibsatay oo aysan ahayn ciidan maanta nool oo lagu xisaabtami karo ama wiilashaas Soomaaliyeed ay xukuumadda Soomaaliya ay iibsatay. warkii xilliga ka soo baxay xasan sheekh maxamuud ayaad moodaa warkan filla Soomaaliya maanta in lagu beeninayo. sidaynu la wada soconno maalmihii u dambeeyay waxaa soo baxayay in xiriirka diblomaasi ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya uu xiriiri galay. xukuumadda Addis Ababa oo horay casuumaad ugu soo dirtay madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuudna ay casuumaadii la laabatay ayna diiday in xasan sheekh maxamuud uu ka soo dego magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya si uu kulan oo la yeesho ra'iisul wasaaraha Itoobiya
Ethiopia arrintaasi si weyn ayagu cudur daaratay sida la sheegayana Ethiopia waxay u arkaysay Xasan Sheekh xilliga mucaaradka ah inuu hadallo fara badan oo meel ka dhaca ama delqaafa uu soo jeediyo dawladda Ethiopia dhaliila sidoo kale Ethiopia xilligii Xasan Sheekh mucaaradka waxay ku jirtay xaalad qalabsan oo dagaal xukuumaddan Abiy Ahmed waxa la dagaalamahayay wadamada galbeedka oo dhan waxa ugu badan ee lagu dagaalamahayna waxay ahayd dagaalkii uu la galay Tigreega sidoo kale warbixintan qaramada muddo ka soo baxday iyo hadalkii Xasan Sheekh ahaa in ciidamada Soomaalidu ay dagaalkaasi qayb ka qaateen laftigeedu wuxuu u geystay dhaawac siyaasadeed oo xoogan ra'iisul wasaaraha hadda xukuumadda Ethiopia dhanka kale waxa soo baxayay xoga sheegayo in kadib heshiiskii Soomaaliya iyo Kenya ay wada galeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Uhuru Kenyatta ay kala saxiixdeen in Ethiopia ay u arkaysa caqabad maadaama jaadka Kenya iyo Soomaaliya ka xidhnaa ka Ethiopia uu tagi jiray halkaan Ethiopia ay dhaawac siyaasadeed iyo mid ganacsi ay kala kulmayso ayna u arkaysay soo dhaweynta Xasan Sheekh Maxamuud xilligan inaysan Ethiopia muhiim u ahayn maadaama Kenya heshiis la soo galay dhinaca kale Ethiopia waxay aad ugu mashquulsanayd in ay soo dhaweyso madaxda maamul goboleedyada gal horay u xidhnaa oo ahaa in ay macaamil la sameeyso maamul goboleedyadana ay dib u furtay Siciidani waa Addis Ababa tagay warbixino hore sida lagu sheegayayna ay jiraan maamul goboleedyo kale oo Addis Ababa ka casuuman sidaynu la socono qorshaha Xasan Sheekh Maxamuud uu ahaa Soomaali heshiisa dariskeedana heshiis la sida daraadeed uu doonahay in xiriirka Ethiopia uu soo ceshado laakiin Ethiopia ay u aragtay Xasan Sheekh Maxamuud ka maanta inuu yahay Xasan Sheekh Maxamuud ka shalay lahaa ciidamada Soomaaliya dagaalka Eritrea qayb ka noqday oo Ethiopia garab siiyay marka waxa laga yaabaa inay culays iyagu saareen oo ay yiraahdeen arrintaas ilaa raali gelin ka bixiso dalka iyaga ma iman kartid laakiin dhinaca kale marka loo fasiro hadal ka soo yeeray Xasan Sheekh Maxamuud xilli uu shacab ahaa in maanta lagu taakeeyo ama lagu caqabaday waa dhaliil xoogan oo siyaasadeed waana dib u dhac Soomaalidu ay kala kulmayso dhinaca Ethiopia waxayna ceeb weyn ku tahay filla Soomaaliya waxaana moodaa inay xukuumaddu kala saari lahayd Xasan Sheekh xilligu shacabka ah iyo maanta uu madaxweyne yahay shalay markuu shacabka ahaa oo la doorashadu ku jiro madaxweyne meesha joogay buu la dagaalamay hadal mar ka soo yeeray maanta looma qiimeyn karo maanta wixii ka soo yeeray loo qiimeyn karaa biri marka waxaad moodaa Ethiopia laftigeeda arrintaas inay ku degdegtay Xasan Sheekh Maxamuudna uusan ka fiirsanin raali gelintan haddii Addis Ababa loo diidayna inuu wixii kale uu ku soo jiidan karo xiriirkaas uu sameeyahay inuu waxa weeye uu garka dhulka ku dhufto ma aysan ahayn maxaase ku qasbay hadalkaas is leedahay ciidanka haddaysan Ethiopia joogin raali gelin ma Addis Ababa ayaa leh mise Asmara iyo Eritreadii ciidanka tababarka siisay ma la oran karaa Ethiopia ayaa culays ku saartay xukuumadda Soomaaliya hadalkan xaqiiqdii waa waxa ay dadka Soomaalidu is weydiinayaan oo ah raali gelinta Asmara iyo Eritrea leh mise Addis Ababa iyo Ethiopia laakiin waxaad moodaa Abiy Ahmed culayska siyaasadeed ee shalay haystay inuu weli sii haysto marka inuu ka faa'iideysan hayo cusaybka Xasan Sheekh iyo xiriirka diblomaasiga uu doonayo in Ethiopia la yeesho iyo ciidamada Soomaalida ee Eritrea uu ku soo arkay sida daraadeed uu Abiy Ahmed uu culays ku saarayo in Xasan Sheekh uu beeniyo warbixintii qaramada midoobay ee ahayd ciidamada Soomaaliya dagaalka ka qayb qaatay isagana uu lahaa ciidamada Soomaaliya dagaalkaas galeen way ku baaba'een Ethiopia marka waxaad moodaa culayska siyaasadeed ee weli haysto inay u aragto maanta fursad siyaasadeed inay uga faa'iideysato Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumaddiisa maadaama oo weli cilaaqaad siyaasadeed uusan dhex marin su'aasha jawaabteedu waxay noqonaysaa raali gelinta waxaa mudnayd Eritrea ma mudnayn Ethiopia laakiin Ethiopia danteeda siyaasadeed ayay ka dhex aragtay taasana sababaysa in Xasan Sheekh Maxamuud ay dib ugu celiso dhahdo inaad arrintan naga raali gelisaa rabnaa ugu dambeyn xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya oo xumaado yuu daran yahay labada dal inta la og yahay xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya oo xilligan xumaado caqabad weyn buu ku yeelan karaa xasiloonida iyo nabadgelyada geeska maadaama labada dalba ay ka hulaaqayaan dagaalo u dhaxeeya xoogaga argagixisada iyo dawladda Soomaaliya iyo xoogaga TPLF iyo dawladda Ethiopia xoogaga Oromada iyo dawladda Ethiopia dagaalkan kaga furan Ethiopia dhanka xuduudda Suudaan caqabada siyaasadeed oo culculus oo gudaheeda ka jiro maadaama marka labada dalba ay arrimo xasiloon darro aad u weyn la dala dhacayaan sida darteed xiriirka labada dal oo xumaado waxay saameyn kartaa xasiloonida iyo nabadgelyada geeska labada dalna waxay ku tahay caqabad oo labada dhinacba culays kaga yimaado koodna ma xamili karo Ethiopia haddii ay maamul goboleedyada soo dhaweysato cilaaqaad la samaysato dawladda federaalkana xiriirka ay u jarto Soomaaliya ma survive gareyn karta ama ma noolaan karta ama hore uma socon karto dhinaca Soomaaliyana hadday soo dhaweysato jamhadaha Ethiopia ka jira sida jamhadda Oromada midda Tigreega xoogaga Soomaalida iyo dawladahan kale ee Suudaan iyo Masarna Ethiopia gudaheeda nabadgelyo kama dhalanayso marka labada dalba maanta iyagay dan u tahay inay xiriirkooda gudaha iyo midkooda dibadda iyo daris wanaagooda iyo xuduudahoodaba inay ilaaliyaan si xasiloonida geeskan ay u noqoto mid degan waliba marka maanta la fiiriyo la isbarbar dhigo waxay saameyn taban ku yeelan kartaa Ethiopia oo ah wadan maanta xasiloonadiisu ay aad u xuntahay nabadgelyadiisu xaalad khatar ku jiro ururo ka dagaalamahayaan afkaar ahaan wadanka siyaasadiisu ay sadnaganayn dalal waaweyn ay isku hayaan dhismaha wabiga Abay Niil ay isku hayaan Suudaan uu dagaal kaga furan yahay Masaaridu ay Soomaalida xiriir la leedahay hadda lafteedu la sheegayo in
mahad salaad oo ah madaxa sirdoonka Soomaaliya uu xiriir la leeyahay masaarida marka Itoobiya caqabad weyn iyo culays bay ku tahay maanta inay Soomaaliya culaysato laakiin waxaad moodaa in Abiy Ahmed uu arrinta ka dal uga golleeyahay inuu uga faa'iideysto eedihii faraha badnaa ee qaramada midoobay ay u soo jeedinaysay in mid kamid ah uu lugta u bixiyo ama uu iska fududeeyo si xiriirkii uu reer galbeedka la lahaa u soo ceshado ma dhiiran karo inuu xumeeyo ama carqaladeeyo xiriirka uu la leeyahay Soomaaliya isagana maanta ku qasban inuu Soomaaliya xiriir fiican la yeesho aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wariye Faahiye intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa qodob doodeedkeena maanta intaan ku kulmi doono barnaamijka midka xiga waxaan kaga tagnaa sidaas iyo nabadgelyo